الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحابتي قروحda badnayd ee sharafta badnayd waan idin wada salaamayaa kulligiinba. waa gabadhiinii kaltuun saxan saxo ama maamadiinii habaryartiin eedadiin wax kastaan idinkaga aadanahay qofkayga yar iyo qofkayga weynba qof kasta waxaan igaga aadan yahay amaano ahay ayaan idinku wada salaamayaa. qof kasta meeqaankiisa iyo sharaftiisa ayaan ku salaamayaa. waa mar kale iyo fiidyo yar oo kale insha Allah biidmillaahi raxmaan. maanta waxaa weeyaan waa maalin sabti anagu school holiday baan iskaga jirnaa maasha Allah biidmillaahi raxmaan. marka waxaan rabaa inaan kariyo bariis iyo hilib. in dhaweyto bariis kan sidaan aanu karinayo ma karinin, bal xoga waa wixiisna iska kulaylana waa iska jiraa, sida loo cunayo ma garan karayo maaragtay. laakiin alxamdulillaah maasha Allah aad baan uga helay, laana waxa way waa xiisaynay waqti aad u horeeyay ugu dambeysay bariisaan sidaan u karkariyo sidaan maaragtay xaafadda digirta iyo khudaarta maaragtay digiraha ama iyo khudaarta u bilaabay bariiskan sidan loo dalaco waan yareeyay. marka insha Allah hadda ayaan maaragtay karinayaa idinlana wadaagayaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. waxaan soo diyaarsaday 2 xabo oo basasha cascas ah, kamsaro fiican oo xoogaa maaragtay aad u fiican xoogaa adiga kuusa, 2 xabo oo toon ah. ka raalli hada fiidiyowgan soo celin laana wax yar weeyaan, intaasun baan badiyay dheeraysiye. marka toon waxay toontu 5 xabo inay ahayd, 3 xabo oo basbaas qaji ah. bahalka mashiinka waxaa igu jira galaaska, waxaa igu jira xamar baa igu jirta ama raqi qofba siduu u yaqaano. waxaan kaloo soo diyaarsaday xawaajka la yiraahdo xawaaji burbuurka iyo xawaaji kaloo isku shiiday oo maarta xulbad baa ku jirta, xabad sooda ku jira. hadda ka hor baan sameeyay isagoo fiiriyo waan ka sameeyay. intaasaan isku jaqsiinayaa maasha Allah bariiska ka samaynayaa. dhinaca kan waxaa igu bislaanaya shigni ama basbaaska isaga timir xamarta iyo cusbo adiga afaarahaasan ku daray, afaarihiisa isaga ma sii gelayo. dhinacan waxaa igu diyaarsan isagana bariiskii aan soo dhaqday, si fiican u dhaqay oo aan qalajinayo oo si biyaha igaga si dhamaadaan. marka basashii iyo toontii basbaaskii maasha Allah isku shiiday iyo xawaajiyadii isku daray, kamsartii alaabadii oo dhan maasha Allah sidan igu shiilmasaa. dabka xoogaa igu dheer mar dambaan dareemay, markaan daboolka kula cararaan dareemay dabka aad igu dheer, markaas saliidii waxba igu soo duldulin, xitaa kijada wuu iga haleeyay. marka alaabta yar baan isku jaqsiinayaa. xaafadan rabay ciyaalka inaan kaga farxiyo maadaama waqti dheer aan la cuninin. waa ogahay badanaaba dadku cunto karinta aniga ilama wanaagsana, qof kasta cunto walaaqaya. nadaafad oo kale waxaan isdhahdaa qof kasta waxbuu nadiifinayaa, bal maad adiga wax kale keensatid. markii aan channelkan furayana mabdaayigu totally maba ahayn inaan cunto kariyo, ma ahayn inaan maaragtay waxaasoo dhan kaliya nadaafadana ma ahayn. insha Allah wixii aan ugu talagalay haddii Ilaahay naftan amaanada uusan iga qaadin waan u soo diyaar garoobaya haddii Ilaahay yiraahdo aan mashquulka iyo hawlahaas ka baxo. waxaana jeclaysanayaa wax ka duwan walaalahayga kale inaan keensado, la'aana ma fiicna qof hadduu wax keeno inaadna wixii oo kale keentid ma fiicna. sida qisaskoo kale gabdhaa keena, gabdho waliba aad ugu fiican qisaska keena, sida qisaska maartay crime-ka oo kale, qisaska maartay kale oo maartay yani diiniga oo kale gabdho u gaaraa jira. marka hadda qiso keeno waxaan dareemayaa inaan gabdhihii kale maartay yani ma fiicna program qof kale keena inaad keentid. marka insha Allah waxaan rajeynayaa midkan keensan doono inuu xoogaa ka duwanaan doono. waana eegayaa dadka marba qof dadkan wada eegaya, haddii aan arko inuusan jirin programkaas insha Allah waan keeni doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. marka cunto karin ma ahayn, laakiin cuntada marmar waa iska soo gashanaya haddii Ilaahay yiraahdo. markii khudaartii wixii ii shiilmay oo suugadii bariiska ama qalays baa la oran jiray Soomaaliya markii la joogo, qalayska ii shiilmay, bariiskii baan ku darsaday. bariiskan xoogaa shiilaya adiga ilaa iyo maaragtay 10 daqiiqo baan bariiska shiilaya. basbaaskiina jag waa ii bahalkii ismaday. xaggana waxaan ku soo diyaarsaday haddii Ilaahay yiraahdo codkayga fiiriyowgu iskeeno
waxaan kusoo diyaarsaday bariiski weeyaane waxaan kusoo diyaarsaday maxay haytay bismillahi raxmaani raxiim waaba anigaaba ilaawo sabiib iyo waxaan ku sinsin baan soo waday sabiib iyo khudaarta maartay galleyda iyo digirta oo maartay freezerka iskaga jirta iyadoo diyaarsan la soo gato barbarooniga oo laba nooc badanaa waxaan jeclay barbaroonigu saddexda noocba greenka iyo casaanka iyo yellow inuu ahaado laakiin ilaaha qudradiisa labadaasan hadda haystay labadaasaan isku soo diyaarsaday bariiska markaan kariyo oo maaragtay aan dabka ka damiyo haddii ilaahay yiraahdo ayaan intan dusha ugaga darayaa iyo wax yar oo sacfaraana oo in yar oo sacfaraana oo yariisa aan dhinac kaga daro si bariiska marka kalar qurux badan igu yeesho bariiskas marka waxaan sameeyaa ovenka ma gelin awal hore ovenkan gelin jiray berigii hore markaan bariiska karinayo laakiin hadda waxaan ogaadayba farsamo yar oo kale dabkaan u gaabinayaa aluminiumkan afka jag uga siinayaa dabka waxaan uga dhigayaa adigu siiro wax la mid ah matalan wax yar daciifa baan ka dhigayaa waa iska daynaya wuu iska huuraya maasha allah waxaa ka soo baxaya bariiskii oo nooc kale ah oo dee bismillaah aadan malaysan karinin marka bariiskan aniga runtii markaa karinaya saliidi aad u yar baan ku kariyay saliidana waxaan ku kariyaa saliida vegetableska laga sameeyo maaragtay ama saliida lowska laga sameeyo ama maaragtay saliida khudaaraha iyo maaragtay laga sameeyo waxaan arkay dad olive oilka cuntada ku karinay anigu waxaan maqlay saliida olive oilka haddii dabka la geliyo ma wanaagsana baan maqlay allahu aclam laakiin weliba dhakhtar sharaxaya baan ka dhageystay saliidaas ma fiicna baa la dhahay marka dabka cuntadu markay qabowday la cunayo in korka looga cuna baa fiican baa la dhahay marka anigu ilaahay amarkiisa sidii baan iskaga qaatay waxaana la sheegay cudurro halisa in laga qaado marka olive oilka dabka cuntada lagu kariyo laakiin allahu aclam aniga taas maartay khibrad uma lihi laakiin dhakhtarkaasaan ka dhageystay badanaana dee diinteena waxayna fartay dhakhtarkeenan cilmigiisa dhakhtarkan maartay dhakhtarka xun ahayn inaan cilmigiisa ku aamino oo maaragtay aamino baa layna faray marka alxamdulilah bariiskii waa kana isagoo aan dee waxaan ku yidhi aan khudaartii ku daray sacfaraankana waxa yar ee yalowga dhinaca ka saaran weeye haddee alamiimka markaan afka jag uga siiyo sidiisaasaan u daynayaa wuu isku huurayaa hadha wuxuu noqonayaa bariiska wuuna jilicsan yahay furfur buu noqonayaa maasha allah tabaaraka allah lagama sheekayn karo ilaahay haynoo wada barakeeyo haddii ma wax kasta qanaacada weeye qofku walow wuxuu ilaahay siiyeyba wax yarba ha ahaatee hadduu dhaho alxamdulilah qanaacana ku yeesho ilaahay wuu u barakeeyaa nimco iyo barwaaqo iyo bashbash ayuuna kala kulmaa farxad iyo nimcana alla markasta kuwa kelimad wanaagsan afkooda kasoo saara allaha inaga dhigo kelimada wanaagsan ayaa ilaahay maaragtay inoo qaadaya qofba qofuu ka khayr sheegis badan yahay wuu ka nimco badan yahay qofba qofuu ka nimco cabatin badan yahayna maaragtay waa ka itixaan iyo dhibaato badan yahay marka insha allah bariiskii yacni ilaahay maaragtay bariiskii intaasaa maaragtay sheekadiisii kusoo gabagabeeyay alxamdulilah baryahan waxaan baranayaa fiidiyowyada dhaadheer mana jecli laakiin waan iska yara barbaranayaa maasha allah waa iskala qabsan doonaa wax kalena isma idhaahdo waxaan israahdaa dadka arama daahisaa waqtigooda ka qaadataa laakiin insha allah ma dhici doonto haddii ilaahay yiraahdo waxaa markaa u gudagelaya qaybta hilibka intan marka waa kana waxaan soo gaadhay qaybtii hilibka sidoo kale waxaan ka cudur daaranayaa hilibka laftirkiisa waa video yaro aan isku celceliyey sidaas maart waa farsamayaa laana waqti badan oo videoon ku duuba maan haynin yar baan saa u marmari marka hilibka waxaan soo qaatay jeeni waa garanaysaan dhulkeenii jeenigii oo maaragtay hilibka maaragtay spring lambka hilibka oo dhaylada jeeni baan soo qaaday waxaan xabad tamaandha ah iyo xabad basal ah basasha badana aniga hadaanan waajin oo wax kala dhicinin basasha waxaan jeclahay basashaas maaragtay inaan isticmaalo basasha cas iyada caafimaad badan tacad 100% iyada ka fiican basashaas waad ila aragtaan waxaan soo qaatay iyadana 6 xabo oo toona 5 xabo oo basbaas qajiya baaquligan kale waxa igu jirta xulbad
xulbada aad iyo aad baan aniga u jecelahay u isticmaalaa toonta intusay maashaalla xulbada aad baan u isticmaalaa xulbada gabadha uurka yar leh waxaa la dhahaa uurka yar ilmaha way ka soo ridaan umusha oo kale telefoon baa iga soo galay umusha oo kalena waxma ilmuhu mar intuu shaqeeyo malaha uma fiicna allahu aclam taas ma aqaani laakiin aniga aad waxaan uga cudur daaranaya inaan caafimaad shaqo ku lahayn laakiin bal hadda ilmuhu markuu yacni yar yahay waxaa la dhahaa bahashana ma u fiicna xulbada laakiin aniga xulbada aad baan u jecelahay oo waxa weeyaan basbaaska xaba Itoobiyaanka ee la yiraahdo baarbareed baan u maraynayaa inay dhahaan baarbareed wax saasa basbaaska sax xulbad baa ku samaysan aad baan basbaaska u jecelahay markaas maadaama hadda basbaaskii baanan haysanin marka xulbadii baan boogaaday wixii udgoonka ugu badna xulbadu ahaa xulbada saasaan isticmaalaa marka waxaan soo qaatay xulbad intii aniga markaa igu filnayd waxaan soo qaatay xawaaji buurbuurka cusbada cusbada himalaaya ee cas ama basa binkiga ah iyo waxaan soo qaatay kamsaro xoogaa badan waxaan soo qaatay xamar ama raqay qofba siduu yaqaano koonfurta waxaa laga yiraahdaa raqay laakiin anaga waqooyiga waxaa la dhahaa xamar baa la dhahaa xamartii baan soo qaatay maasha allah ayadana waa tii basbaaskii aan ku shigniga ku sameynayay baan in la haray iyo bariiska ayaan ku karinayay intaas inta isla shiidmaysa darayga waa isla shiiday inta qaleelka isla shiidmanaysana waa isla shiiday ka bacdi hilibka waxaan sameynayaa waan daldaloolinayaa markaan daldalooliyo waxaan gelinayaa toonta hadda waxaan gelinayaa basbaaska isagana inta markaan geliyo khudaartii ii soo shiidantay ee aan soo shiiday ayaan ku dhabuuqayaa haddana alamiimkan ku duubayaa waxaan dhigayaa 30 minute markaan dhigo hadhowtoore insha allah ofinkaan gelinaya qof kasta oo iska garanaya farsamada tan aniga maaha fikirkayga waxaan ka keenay gabadh caraba waan jeclaan lahaa magaceedii inaan si fiican u garanayo magacii ugu qornaa waa sheegi lahaa runtii weliba xitaan doono linkigan hoosoo raacin lahaa sida xaq u yahay oo wanaagsan laakiin farsamadan waxaan ka keenay gabadh caraba dee waxaad ogtihiin oo cilmiga xitaa la barto qof unbaa laga bartaa laguma dhasho qof unba kasii barto waa dhaxaltooyo marka gabadhaasaan ka keenay kole hadday maaragtay tahay qof loo ducayn karo ilaahay baa yaqaana waxaan leenahay ilaahay khayr badan ha siiyo haddii aysan ahayna ilaahay subxaana watacaala ha soo hadeeyo oo maaragtay xaqa alla ha tuso alaabtii saas baan maaragtay isugu darayaa haddii ilahay yiraahdo waan isku soo masaajeynayaa saasaan isu dhexgelinayaa markuu dee saa dhag isugu noqdo ofinkaan jag inoogu siinayaa waan ka xumahay isagoo markaan ka soo saaray idinma tusin sababta waan jarjaray midi baan saa ugu jarjaray si markaan jarjaraan xasuustaan haddaad duubi lahayd suu qurux badnaa marka dee ilaahay idankiisa saasuu dhag alaabtii u noqday allah inoo barakeeyo allana maaragtay dhammaanteenba khayr iyo nimco iyo fikir fiican iyo maaragtay wax wanaagsan allah kuwii kala faa'iido allah inaga dhigo kelimada wanaagsanna carabkeenna allah ha baro ku adkeeyo aad iyo aad ayaan idin salaamayaa dhammaantiinba oo inbaa weli iisii harsan waxaan iga dhamaanay iga go'ayo codku sidii bariiska kala mooday marka kan iyo bariiska waa isku soo dari doonaa waa qadadii aan sameeyay maalintii sabtida dee waxaan ku yiraahdaa anaga baruurtaayo waxaasna hala yaabinana dadka wadamada kale jooga anaga kulayl baan haya maalintaas subxaanallah dhididka iyo waad yaabaysa marka baruurtan waxba nagama dhibayso weyna dubantay marka aad iyo aad ayaan idin salaamayaa hadalkayga badanna iska maaragtay ka raalli ahaada iyo macna daradiisa intii idinka anfacda ka qaata intii kalena qashinka ku dara biidmillaah aad iyo aad baan idin wada salaamayaa walaalahayga qaaliga iyo intaan waalidiinta wahay inta aniga waalidka iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa wiil iyo abtig iyo gabadh iyo habaryarteed aad waxaan idin leeyahay sharaf iyo nimco iyo ciisi meel kasta joogtaan ku jooga caafimaad cimri dheer cibaado suuban assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta yar hadhana tolo iskaga taga ama iska sii hadla aan iska sii hadla maadaama salaantii una igaga goyn allah sahlo